السلام عليكم أصحابتي qaaliga waa idin wada salaam meel kasta idinku joogtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan idin leeyahay soo dhawaada insha allah muuqaal cusub iyo maanta iyo waxaan idin leeyahay inaad ka faa'iidaystaan ayaan jeclahay waa casriye aad iyo aad u fudud oo maasha allah tabaaraka allah oo laga sheekeyn karin tiramisu haddaa hore u maqasheen si fudud loo sameyn doono insha allah soo waxaa u baahannahay laba meeshan waxaan kusoo diyaarsaday saxankii aan saari lahaa iyo saxankii aan kafeega ku sameyn lahay marka alaabiya u baahanayo dhan ayaa halkan kusoo diyaarsanayaa waxaa u baahan tahay kafeega snap cafe la dhahaa ama kafeega dhalooyinka ku jiro haddii aadan markaas haysan kafeega caadiga oo mashiinada lagu sameeyo kaleeto ma isticmaali kartaa insha allah muhiimadda waxaa baa kafee qabow ama xilli hore aad karisay oo kaleeto inaad ku sameyso insha allah marka halkan waxaan kusoo diyaarsadoo kaleeto Philadelphia waxaa waa cream fadhiyo iyo fisbegrade ama caanaha whipping creamka soo halkaas ayaa wixii dhan kusoo diyaarsaday maasha allah tabaaraka allah lagama sheekeyn karo inaba caadi maaha casriyedan kafeegi ayaa halkan soo qaatay snap kafeega ama kafeega dhalooyinka ku diyaarsan snap cafe ayaa loo yaqaanaa kafeega aad iyo aad u fudud laga wadaa ma fahanteen haddii aan idiin macneeyo soo baaquligaas ayaan kusoo shubtay ama saxankaas godan qaando ayaan soo dhex gashtay marka wax yar oo biyo kulul si oo kafeega xoogaa yacni wuxuu leeyahay murxo ayuu leeyahay marka siduu iigu burburo ayaa waxaan sameynayaa biyo ayaan soo karkariyey si arkaysa biyaha kama soo badanin waan kusoo jijibiyey marka horeeto 2 bakeeri oo biyo qabow ayaan kusoo daray markuu halkaas noo diyaarsayan kafeegan hadda waa inoo qabow kafeegan kafee aad u fudud waa haddii mashiinada kafeega lagu karinayo haystaan xilli hore inaad karsato xoogaa ku qabow ayay wanaagsan tahay marka wixii aan dusha ka mari lahayn ama ka saari lahayn oo kaleeto ayaa halkan ku diyaarsanaynaa halkan waxaa ku haystaa waxay tahay Philadelphia ama kareemka 300 oo gram waaye waa midka ugu weyn large originalna waaye ma ahan midka yacni waxay leeyihiin dhowr nooc ay u kala baxaan kuwo dhadhan ayaa loo sameeyey waxyaabaha waxaa loogu talagalay raashinka lagu cuno kuwa kaleetana yacni noocan oo kaleetana waxaa loogu talagalay markii waxyaabaha dubaysa oo kaleeto wax dhadhan dhan looma sameynin waa natural insha allah soo halkan waxaan soo qaatay whipping creamka ama fisbegrade-daha qof walba sida uu garanayo ayaan halkan kusoo diyaarsaday waxaan kala soo qaatay geedahan lagu cabiro oo deciliterka 2 deciliter ayaan ku shubay sida arkaysaan haddartaan marka insha allah waa soo yacni mashiinka ayaan kusoo garaaci doonaa marka horeeto fisbegrade-daha macaanahan oo marka horeeto u baahan in adeeg laga dhigo soo mashiinka ayaa xoogaa kusoo garaacayaa si oo noogu adkaado markuu adkaado waxaa ku garanaysaa baaquliga haddii aad gediso kama soo fuqayo insha allah waxaana fiican yacni inaad si fiican u garaacdo insha allah casriyedan aad iyo aad ay u fududahay marka Philadelphiahan ama creamkan fadhiyo asaga halahaas oo dhan wada isticmaali doono maadaama 300 gram uu yahay aan wax yar u fudud oo casriye oo 2 qofood ay cuni karaan ayaan sameyn doonaa insha allah haddii aad tihiin family weyn saxan weyn oo ku sameysan kartaan 300 gram maadaama uu yahay kala bartanka ama yacni dhex bartanka ayaa kasoo goonayaa wax yar ayaan ka isticmaali doonaa insha allah maadaama aan sameynin wax badan soo markii aan halkaas ku riday kala barkiisa adiga 150 gram ayay noqonaysaa 300 gram maadaama uu yahay marka halkan waxaan kusoo shubtay oo kaleeto qaando sokor sokorta caadiga haddii aad haysato sokorta shiidan oo kale waa isticmaali kartaa haddii aad haysato sokorta caadiga waa isticmaali kartaa laa baas yacni wax ay dhibayso ma jirto soo marka inta soo dhexgeliy si fiican isku soo dhexgeliy halkaas ayaan dhigtay meeshii aan wax ku sameeyay salahay ayuu yacni caanihi ku faniineen ayaan iska soo tirtiray nadaafad waa muhiim aad iyo aad u muhiim u tahay mideeda kaleetana howsha way kusii fududaanaysaa markii aad wax sameynayso haddii aad hore wax gacanta kasii mariso hadhow waxay noqonaysaa markii aad ka dhamaato howshaas yacni waa ka fariisanaysaa uma baahnaanaysa inaad sii taagnaato jikada ama yacni waqti badan ay kaasii qaadato meesha waxaan soo qaatay bacda decorationka loogu talagalay bakeeri ayaan soo dhexgeliyay si aan ugu shubto waxyaabihii aan sameeyo kaleeto oo yacni aan ku sharaxi lahaa insha allah soo caagada afkeeda waa idin tusi doonaa xoogaa afkiisa aad u weyn yahay yacni ulika yacni design ayuu kusoo baxaa insha allah mid allaale midka aad jeceshahay ayaa isticmaali kartiin soo saxankaas yar ayaan isticmaali doonaa insha allah kafeegay waa inoo diyaar haddartaan waa kaasa marka waxaa u baahan tahay waxay tahay waraaqad marka waxaan sameeyey saxanka markii aan sameynayo kafeego kaleeto inuusan iga gargaarin geesaha yacni waxaa loola dan leeyahay howsha inay ku fududaato biskutka loogu talagalay tiramisuhu waa kana dukaan allaala dukaanka aad carabta dukaamikooda waa laga helaa iikaha meel kasta waa laga helaa insha allah sawirka qaata aad iyo aad ayuu u fudud yahay biskutkan yacni biskutka un badsaa soo gadanaysaa kadibna waad isku haabeynaysaa isku aadinaysaa insha allah waa yacni casriye aad iyo aad u fudud waaye
soo qof walba tiramisu si gooni ay u sameystaa dad waxa arkaysa ukun ku sameysto ukun ku daraa marka ukunta hadii ay xasaasiye ku tahay oo kale sidaan oo kale ayaa sameysan kartiin insha Allah soo tiramisu maadaama uu kafee ku jiro caruurta laga ilaaliyo insha Allah caruurta uma wanaagsano laakiin ilmaha hadii 15 sano ay ka yara weyn yihiin oo kale waa iska caadi maalmaha qaar hadii ay cunaan laakiin dadka waaweyn ayuu ku fiican yahay caruurta uma wanaagsano caruurta waxyaabo kale loo habeeyo insha Allah kafee waxyaabaha يعني أمنوين وحكوجرو آد استاركو أما يعني أضك سو عروت وما فيعني إن شاء الله سو بسكوت كي أيام حسمين دونا إن شاء الله يعني بسكوت كو وحبضنكم هيني سماش هديك الوكابر برايا يعني وادقلينيسا شندق يعني مرب وكصب حنيسا إن شاء الله سو بسكوت كي سدا أركيسان بعدي وحي عن كلها وجدد أكلها وسدا ستو بعدي جيسي أيان دحدي أيان كسو جرو ورقدة geesaha ayaan dhigay kadibna buskudka ayaan ku tixi doonaa markaas sidaas aan sameeyo oo buskudka aan ku soo dhameeyo marka hore oo kafeega qayb dabaqadii koobaad marka waxaan sameeynaa bacda xogaa waa soo dhaweynayaa insha Allah si ay igu fududaato hadhow ka bixisteeda marka waxaan sameeyay caanihii aan soo diyaariyay ama whip creamkii ayaa hadda dushka ka saaraya qof walba sidoo ayuu sameysan karaa hadii aad doonaysana geeda aan haysan waxyaabaha lagu sharxo kaleeto waxaad sameyn kartaa qaando yar soo qaado tartiibkaaga dusha ka saar kadibna ko yani isla sin muhiimada intaas waa insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka bogataa oo muuqaalka idib cajib geliyo oo ay si share gareysaan oo like-na naga iloobin insha Allah soo sida arkaysan dabaqadii labaad ayaan hadda soo saaraya xoogaa markaan ku riixaya si oo isla ekaado ama yani isku qabsado maasha Allah tabaarakallah lagama sheekeyn karo kadibna waxaan sameyn doonaa insha Allah wixii noo hara ayaan hadana dusha ka saaraya oo kusoo habeynaya marka qaybtii horeeta ayaan waxaan ugu roonaaday wax يعني عانيه بدنا أيان أقولون هذا حوجها سو دب ملها إن شاء الله كده من هالك حاسو قاتي شبكة سر أي أباهن تهاي هذه أتحسن عن مير كسير آت أيو في عن تهاي كده بحكسو شو وحيد تهاي كاكاو هذه أدوني سنة كافيه واستعمال كرتا هذه أدوني سنة كاكاو واستعمال كرتا إن شاء الله كاكاو كمرك حوجة قرار يرأيو لي هاي مدام عانيه وحيابي معايهن كافيه كجرو سو دريمي كرتين عروتي إنه سن wanaagsanin dadka waaweyn laakiin aad iyo aad ay u anfacaysaa soo bacaha saas ayaan usoo siibi doonaa insha Allah muhiimada aan kala hay sidaas ay ahayd wax kasto oo geesaha ku daada lahaayeen hadda warqadaas ayay raacday maasha Allah maalinka la isticmaal rabo maalinka kores waa inaad talaajada sii gelisaa si ay si fiican ugu qabowdo insha Allah soo muuqaalkeena waa gabagaba hadii inta nala soo gaarto waxaan ka codsanaa walaasha ama walaalkay muuqaalkeena noo share gareysa laakiin hanaga iloobina maca salaamo